قيمة له حقيقة قتمة وفي ربيو أبو قدمي نظيف قريو تسوق نظيف قريو تسوق قربة من قبيال الله وفي ربيو أبو قدمي نظيف قريو تسوق نظيف قريو تسوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبتي قالك وين السلام يا ولاشنا دي فقرا يجي كذا إني وحول بهايس هي أرمها بالشدة ولا نمان بلا أرق باك شركة هورت هل بنسوق هذا أصحابي سودوا هذا برنامج كإيشير قرية عاد وحنقوم هاد علنايا دتك سبسكرايب كإيساري هذا كدمي ولا ليالو وحن ليه هاي thank you so much عاد بعد يسو سبسكرايب يوسو صارتين inkastoo dee bahalka uu meel hoose joogo aan weli soo kicin laakiin wuu soo socdaa insha allah sababtoo dadka hadda igu subscribe-ka ii saaray waxaan arkayay 40 qof oo subscribe ii soo saartay marka hadda wuxuu marayaa 12,000 iyo 700 waxsaas wuu marayaa ma dhowa marka horta waa inay mahad celinaya thank you so much baan leeyahay bahalka markaan lacag ka sameeyana halkan giftiyaan ka bixinaa bahalka lacag baa laga sameeyaaba hadda waxaan inii wadaa video horta arrimaha bulshadan maanta ka hadli rabaa wiil caan ka ah TikTok waxaan leeyahay muxuu ahaa YouTube-ka caan ka aha oo aad wada taqaanaa Axmed Buskud la dhaho kuwa kale arrimuhu saas ay isu socdaan ninkii Axmed Buskud ahaa oo isagu dadka ku dhaganaan jiray horta marka adigu qof xumaanti raadiso oo qof dhibkiis aad shilin ku raadiso ومانتا nin iyo naag isfuray iyo nin iyo naag isxumeeyay iyo dad iscaynaya iyo qof kaleeto markaad wax ku raadiso oo aad meesha ku kacsato wallaahi waxa weeye dhibaato ka timaada hadda anigu maanta waa ka hadli rabaa waxaan uga hadlayaa waa arrimaha bulshada kaligiisna ka hadli rabo kuwa badan baan soo dhaqaadan rabaa videoyo badan baan soo bandhigi rabaa isaga waxaan soo bandhigayaa ninka la yiraahdo Daahir Calis oo maxkamadiisa oo TikTok ka furan gabadhii baa iskeentay gabadhii aad arkayseen meel walba ilaa iyo birti dheerayd ee tawalka ahayd ee London ku taalay London meesha ku taalay horta quruxda badnayd la tagayay meel walba la tagayay iyada nafteeda Turki tagaysay isaguna wuxuu leeyahay gabadhii waa isxirtay iyaduna waxay leedahay aniguna waa sixrana videogaas waa inay haya Daahir Calis oo baa ka hadlayay oo aad ma aragtay arrintaas uga hadlayay meeshiisa gabadhii imaatay iyadoo live ah codka waa inay haya ninkaas marka wiilkaas la Axmed Buskud isaga dadka ku dhaganaan jiray isaga ku caay jiray dadka markii berigii ma garanaysaa wiil iyo gabar xaasis u ahaa oo media ku jiray oo isku dhacay aad u dabagalay aad buu u dagagalay dadkii cambaareynayay dadkii caynayay dadkii ceebeynayay dadkii dhibaatadooda raadinayay dadkii waxayna ahayn ku sheegay dadkii wax ku dadarayo kamid aha maanta isagii bay haysataa waxa la yiraahdaa adduunku waa silsilad uu soo wareegaa marka dambe way soo xiraan maanta isagii bay haysataa uur bay u leedahay wiilna way u haysaa waxa ay ka sheegayso waad yaabaysaa inuu dili jiray inuu abuse jiray inuu rafaadin jiray waxa ay ka sheegayso waa inay daara video mid waa midda waa Axmed Buskud iyo sheekadiisa iyaduna waa bisisha waxaan kaloo inii haya iyadana gabdhihii Soomaaliyeed oo yaryara hooyooyinkii oo mas'uuliyadoodii gabdho yaryar oo wili guriga hooyadood ku jira qasab ilmahaas gabdhahaas waalidkii baa wali gacanta ku haya haday agoon yihiin iyo ama rajay yihiin dad baa gacanta ku haya masuulka ah hadii ay waalidkood joogaana wali waalidkii baa gacanta ku haya waan arki doontaan oo waxa ay sameynayaan aad ka naxayso waxa kaloo jira isagana nin isla maxkamadaas Daahir Calis oo maxkamadiisa ولا الرجل ولا داير وحن قولها thank you so much نادر thank you so much بنقولها هرت ساق بدها نمانك أبي سردها نمانك دبعت هذا بدنا نمانك كل جود سرقي سنجري نمانك كل جود محسوب بنيجي جري سيدا عاد وكشف يسو كل هدي وأي أرت الرجل ده كان ميديا هكجرة أو عاد أركيسان ده بدنا وحكجرة حنونسن والله بالله dad badan waxa ku jira muuqooda waxa aad ku aragtaan wax ka duwan guriyahooda kula dhaqma
xasbuna allah ilaahu nagaa nin media ku jira ha isku guursanin iyo gabar media ku jirto toona because waa dhibaato waxa weeye wallaahi waad ka naxaysaa wiilkaas marka daahir calasow qaybna wuu ku qaldan yahay anugu meelo aan aad ugu dhaliilsanahay oo aan jeclaan lahaa inuu iska daayo hadduu iska daayana uu maaragtay qiimo yeelan lahaa baa jirta laakiin maalmahan maxkamadiisan yaa wax badan baa ka socda waana soo dhaweynaya gabdhihii maaragtay raggii buuna kusoo bandhigaa raggii awal hadda maxkamadda hadday gabar lahaan lahayd yaa hadday gabar lahaan lahayd annagu nin gabdhaha intuu soo bandhigo dhibka loo geysanayo ragga dhibka geysanayana soo bandhigaya waan u baahnaynba because raggu iyaga lee awal is ilaalin jiray iyaga lee is protect garayn jiray gabdhahay ceebeyn jireen gabar kale haddii ay dhibkeeda u sheegato oo gabadhaas kasoo hadasho haa naagahan waa lasoo diray waa feministe lacag bay qaataan kan bay yihiin kuus bay yihiin waagii ay ka hadli jirtay arrimahan qofta la yiraahdo maama malyuun wixii ugu daraa oo dhibaateeyay niman bay ahayn xataa wadaadaa ku jiray wadaadadii hadda ma aragteen wadaadkii ugu daraa oo youtube-keeda xiray kab iyo karin wuu isla waayay meelahan gabar ku kufsado oo u caran ma garateen marka wixii aad aragtay baa lagu dhigay dib ay ka hadashana mid iyada ku dhacday ahayd markii dambena wax xaqiiqa oo jira oo guryaha ka jira oo dumarka ka jira oo ilmaha haysta oo ay xogogaal u tahay soo bandhigtay la gabdhahu iwaysi yaqaanaan intooda badan saaxiibana way ahayn qof ganacsataan way ahayd waxa aragtay dhibaato loo geystay hadda daahir calasow meeshiisa dhibaato loo geysto iska dhaafee malaayiin baa lagu bixiyaa because waa nin marka aad baan anigu u soo dhaweynaya marba hadduu gabdhihii ma arkaysid nin dhaleecaynaya ma arkaysid nin dhahaya daahir calasow gabdhuhu nagu diraya daahir calasow waa lasoo dirsaday daahir calasow lacag buu soo qaatay qof dhahaya ma arkaysid because raggu way is yaqaanaan way iska warhayaan way ogyihiin inay waxba ka qaadayno haddii ay saa ku dhahaan uu runta uu hadda soo bandhigo wax ka badan soo bandhigayo gabdhaha nimanku soo ximeeyan buuna soo qabtaa aad baana kuugu salaamaya arrintaa daahiro waa ku salaamaya aad baan kuu salaamaya aad baan kuu salaamaya wallaahi bilaahi followerka ugu horreeyaan ku ah waa ku salaama waana ku taageera because meesha aanu ka ba'nay waxay ahayd gabdhaha ragga xunxun ee ummadda wanaagga isaga dhigaya ee meelaha intay soo faritaan saana dhacday oo iyagiyo xumaan ku dhex jiro iyagu ummadda dhibaataynaya dad kale wax ka sheegaya oo iyagu tooda aan sheegayn rag baa difaaci jiray ninkan axmed buskuda maamulyo ninkii ugu daraayo cay jiray buu ah wiilkaas dadka wax yar oo ceeb hadday soo baxda ninka ugu horreeya soo bandhigu ah muxuu markaa usoo bandhigaya inuu macnaha xumaanta necab yahay inuu xumaan ka hortagayo inuu xumaan maaragtay bahalkeynayo isagii maanta waxa laga sheegaya haddaad maqashaan dhagaha faraha gelinaysaan waa inii daaraya daahir calasow thank you baan kuleeyahay daahir calasow mid kale wuxuu soo bandhigay daahir calasow maxkamadiisa lagu soo bandhigay naagtiisii iyo ilmihii naag buu guursaday wuu furay gabadha soomaaliya inay joogtaan u malaynaysaa hadalkeeda ka maqli doontaan cunugiisi baa leeyahay biil siiso cunugiisi buu leeyahay sowtaan ku ballanay inaa 500 siiso miyuu dhah bishii ilaa baan kugu dhashay arag kuwa kale waa aragnay marka daahir calasow waxaan ku taageersanahay gabdhaha dhibaataysan iyo gabdhaha jecel inay gabdhaha loo hadlana aan leeyahay ku taageera waxa weeye raggii isqarin jiray iyo raggii maaragtay markii gabdhuhu ka hadlaan gabdhaha afka goosan jiray youtube-yadooda xiri jiray iyaga caay jiray ku sheegi jiray inay maaragtay shisheeye u shaqeeyaan inay feministe yihiin in la soo dirsaday inay lacag qaataan buu soo bandhigay carab waa kaasi hadda hadhaan feministe waa isaga ma dhahayaan lacag buu qaataa kaniisadaa soo dira carab dhahaan ma dhahayaan because way is yaqaanaan marka daahir thank you baan ku leeyahay supporter weyn baan ku noqonaya hadda ka dambe maadaama aad wax badan oo qarsoona oo gabdhaha ah aad soo bandhigtay anigu qof kasta oo gabar dhibaataysan garab istaaga ama dhibkeeda soo bandhiga ama u hiiliya waa garab taagna waana u ducaynaya waana garab taagna labada video inay hay daahir calasow baa soo dhigay wallaahi daahir calasow meeshiisa maxkamadiisa weey aad baan usoo dhaweynaya ila dhagaysta marka horta ninka axmed buskud ahaa ee dadka ku dheganaan jiray ee maamulyoon iyo ka daba laalaadi jiray ila dhagaysta haye
TikTok aba iska baranay, Snapchat-ka ayaa iska baranay. Agu degay asaga. YouTube buu degan yahay. Sweden buu degay. daahir wuxuu weydiinaya intay isku Ana barateen Francisca deganay. Ana Faransiiska deganaa. Markaas dhegeysta waa isla yar Waa hadalnay xun buskud. Snapchat-ka TikTok ma iskala hadal nolosheena, laakiin Snapchat-ka ayaa subax hay waxbay soranay sidii baa isku bilownay sheekada. Sidii markaa sheekadii isku bilownay markaa sheekadii bilownay markaa Mars 19 bay saragnay Sanadkii 2022 waa gabadhiisa waxaa hadlaysa markay saragnay 2022 markay saragnay waa taa ayaa gabadh waxaa imid jimce axadna waa noqday bacdeen waxaa imid abriil bishii afraad aad baan u jeclaystay sida uu u wareysanayo oo u dhageysanayo oo u dareemayo weliba wax runta ka ah gabadha because hadaladiisa waxaa ka mid ahaa gabar baa waxay ku tiri waxaad dhimisaa fideoga wuxuu yiri body language-keedaan la soconaya sida uu u rumaysanayo ama uu u dhageysanayo ama uu u dareemayo waxa ay sheegayso because waa ogyahay isaga nafkiisu barbaleenada jira taasaa aniga aada ii soo jiidatay gabadha waraysi dheer buu ka qaadayaa marka dhegeysta bish afraad waxaa imid 29 maalintii ciidda maalintii ciid way. maalintii ciidda 2022 waxay ahayd ciidii carafay ahayd aniga markaa uma iman inaad deganaasho meesha u dego bas waxaa imid ciidda bacdeen waa noqonayay ma sii joogeen markii ay imid ciiddii gabadha soomaali ma aha yemaniyad waay hooyadeeda laakiin waxay tahay soomaali oo waqooyi kasoo jeeda soomaaliga wuu dhibayaa inta badan soomaaliga fahankiisuna wuu dhibayaa hadalkuna wuu dhibayaa marka waana gabar caana oo la yaqaan oo anigu aan weligay arki jiray iyadoo maaragtay media ku jirta marka laakiin waraysi dheer buu ka qaaday bal wax yar kasii dhegeysta dairo thank you aan kula 19 abriil ay mid waxaan baxayna bacda ciidda labadaba heed ciidda ba ka filaa 19 bishii shanaad labadeedii ba heed ciiduna ciiddii ba marayay marka ani waa joogay marka isaga guri buu sii qabtayba guri buu raadiyay guri buu qabtay markuu ani guri ma ogeyn markuu gurigii qabtay bacdeen markuu gurigii qabtay aniga shandad kaliya taasduxasta hal surwaal iyo hal baati iyo hal laba surwaal aniga markaa surwaal iyo waxaa xidhanaya garamo laba garan iyo laba surwaal baa sitay noqosh marka aniga waa noqonaya ma joogeen meesha markii imid dib uma noqon dib dambe uma noqon khalaas sabab ma aqaano sababta adiga waa soo baxday booqasha u timid maxamed buskud markaa u timid kadib waaba noqon weysaba dib waa u noqon waay khalaas social media soo galay waa liifriisiyey wax walba waa idhi mana garanayn wax walba horta waa sameeyey horta 19 maars ayuu imihar daahiro waxaan kaa codsanayaa commentka inaad xidhid oo lacagta ka dhigtid walaalayaal commentiga tiktok ila lacag buuba leeyahayba marka bahalkan war tiktok dadkan maashe waxaan leeyahay dadku maxay ugu waasheen ilaa dadka markii aad loo raaco oo aad loo daawado oo dad badan ku xiran yahay commentiga xataa lacag waayo waa maqlaysin commentiga xiro lacag ka dhigan leeyahay subscribe buu leeyahay wax walba buu leeyahay laakiin dadkee waa dadka muxuu ahaa calisow kaleeto daahir calisow kale laakiin daahir calisow meeshiisa hadda barnaamijkan uu ku bilaabay wallahi anigu waa la dhacsana been iniima sheegay waan taageersana because gabdha wax u hiiliya la-ah gabdho marka iyagu dabcan inay isu hiiliyaana loo midoobay wadaad iyo waranle iyo mid sidaasoo kaleetaba oo qarsoon oo isaguba abusera sida maaragtay axmed buskud oo kale loo midoobo bay ahaan jireen oo meeshooda lagu yaabo oo la dhibaateeyo laakiin hadda wiilkaas ma laga yaabo in la dhibaateeyo marka daahir waxaan leeyahay thank you gabdho badan niman badan buu banaanka keen mid kale ayniin haya
gabadhiisa uu leeyahay 500 sii waryaa soo taan ku dhahay يا daahir yaa bay حر هذا حرم سجالي طبنكي هرت سجالي فور جيسك كتاب كبتيجي عارف رايس كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو حي القيوم daahir wuu baqay daahir wuu cabsado subxaan allah gabadha dhagaysta waxay dhahday waa soo baxay surweel iyo garan baa xiran jiray tiri iyada nafteeda ilaahay aa soo hadeeyey hadda way asturan tahay laakiin surweel iyo garan baa xiran jiray tiri waan soo baxay salaan baan ugu imaaday maba noqoninba xasbuna allah wa nicma alwakiil allahu aclam wa rasuuluh siday sheegaysa laakiin wallahi fu fadhiyo ayuu markaa maxaa la dhahaa meher xad ayuu ii sameeyey uu i meher xaday anigana ma garanin meher xad wuxuu iigu yeeray rag markuu raggii iigu yeeray uu i meher xaday subscribe-ka ku xir daahiro markuu i meher xaday ayuu igu yiri xaaskayga tahay meher baa kugu xidhan meherkan sidan ana fahmi joogin waxba joogin waa maxaa dhacay dhimal ani waa iska soo noqday avril markaa imaaday ayaa ku yiri meherkii ay igu samaysay muxuu yahay bal si fiican igu macnay wuxuu yiri waa meesha waxa ku taa meher maaha cid ma joogin in adeer ma joogin ina yar oo ilmaabtin hore hargeysaada ayaa joogay bas cid kale ma joogin cid kale ma joogin kaayad oo ilaahay baa igu oginana been sheegay gabadha horta cajalku waa dheeryahay aad buu u dheeryahay anna ma rabo fideogu inuu iga dheeraado waa inii soo gelinaa waad yaabaysiin meesha daahir life buu ka ahaa tiktoka kolley waa laga yaabaa in dad la degeen oo meelo geeyeen sidan oo kaleeto aniguna waa inii soo gelinaa intii aan ka qabtay laakiin daahir wax badan bay gabadha sheegaysaa wax badan bay gabadha sheegaysaa caddaymo badan baa hayaabay leedahay hadda waan kala tagnay leedahay mid waa midka kale waxa weeye nin kale oo isagana sidaasoo kaleeto gabadh intuu xumeeyey gabadhii uu qabay wax siin waaye oo uu leeyahay waryaa sootaan ku dhahay 500 sootaan gabadha ku dhahay bal isagana aan dhegaysano sugbal aan soo bixiyay isagana wallaahi adduunka waxba aragna wallaahi adduunkan waxbaa la arkay war daahir waa anigu gacan baan u taagay شاي waxaan ku balanaa 500 doollar baan siisay ma dhibi ku taa nin baa ilmihiisi 500 sootaan sii ku dhahay dibdaro cida taska wasaha ma jirta su'aalka la weydii shalay waxaan ku balanay 500 oo dollar oo biila ina ilmahaaga siista dib may kugu tahay su'aashan ku weydiin dad Soomaaliyeed ama rabto ila saxabto la iska beesheeyo shanta adiga السلام عليكم دار على السوق 500 دولار oo ilmahayga biila cunugayga hadii aan daaweysan karaayo ee quraan saara karaayo gabadha 500 دولار biila Soomaaliya maqlaysaa siyaa gabadhaas cunugaas xamar ay geysto 12 bilood dhageyso cunugiisii buu wuxuu leeyahay hooyadiis ha laga qaado xamar ha la geeyo haddana wuxuu sheegayaa wuu xanuunsan yahay cunug xanuunsan oo hooyadiis uu diidan yahay inuu 500 ku siiyo ya hooyadiis buu diiday inuu biil ku siiyo waa meesha aan ku leeyahay daahir cali sow inaynu gabdhaha la dhibaateeyo rabaan in loo hadlo oo inagu markaynu u hadlo dhibku ka soo gaari jiray oo inaynu garab istaagno waay meeshaan ka leeyahay waa bal fiiriyo walaalayaal ninkan hadda wuxuu leeyahay war cunugaaga 500 gaar bay usoo wada hadleen luuqay kolley kusoo wada hadleen hadda laakiin waxa weeye wuxuu rabaa inuu booris ku qariyo cunug buu xanuunsan buu sheegaya cunugaa xanuunsan buu leeyahay waa in hooyadii laga qaado xamar la geeyo oo cunug xanuunsan oo xamar la geynayo yuu yahay qofka dhaqaalaynaya markaad hooyadii ku dhaqaalayn weyday markaad hooyadiis wax ku siin weyday markaad hooyadii ku ogaan weyday waan ka naxayaa buu ku leeyahay maxaad ka naxaysaa haddaad ka naxayso ama aad jeceshahay ama aad rabto inuu kuu bogsado ama aad rabto inaad aabanimo muujiso hooyadiis baad ku dhaqaalayn lahayd ood kala tashan lahayd ood dhihi lahayd sidee baynu u xanaanaynaa xagee baynu ka maraa maxaynu u qabanaa laakiin ma rabo laakiin muxuu rabaa inuu dhaho cunuga qaade xagga gee waxaasoo arrimaha marka yaa soo bandhigay daahir cali sow hadday gabar ahaan lahayd hadda midda gabadhu intay u tagtay intaa u sheegi lahayd oo intaa gabadha kale ay soo sheegi lahayd ilaahu ma anigaba ahaade waxaa la dhihi lahaa waa feminiso guryaha loo soo dirayo dadka isku diraysaayo waxa weeye naagtan waa sidano waa kano saasaa la dhihi lahaa because fiiri hadda way soo wada hadleen
500 inuu bixiyay kusoo wada hadleen hadda markuu meesha yimi oo uu arrintii uu sheegayna wuu ku booday aniga saahay dhihin aniga waxaan siinayo aniga inuu boris ku qariyo rabo laakiin daayir cali soo boris ka qarina waa uu yaqaanaay qaanimada uu la yaqaanaay ma iska qarin karaa horta ma iska qarin karo Soomaali marka waa arkaysiin Soomaaliyeed aad baan u soo dhaweynaya daahir waa kugu sabood gareyneynaa nin walba oo shaatiga bustaha hoosta ka gala afkana malab soo marsada inaa saa usoo bandhigto gabdhaha dulman ya oo gabdhihii u hadlaayeen la dhibaateynayay in ay helaan meel nimanka ilaa laga cabsadaayo nin ay intay wax u sheegtaan nimankii karbaasha haddaadan hadda nimanka runta u sheegi lahayn oon karbaashi lahayn waa kaa hor imaan lahayn laakiin hadda waa kugu taageersana waxaan kugu taageersanaya kolley anu wax kale maaha in aad nimankii runta u sheegayso waxaa looga aadaama aadaankii baa yeeraay taasaan kugu taageersana waana soo dhaweynaya arrintaas waa ninkii axmed buskud ahaa ood ogeydeen wuxuu u dhigayay wixii uu dhigayo dad ku dhigayay aad ogeydeen waa kana waxaa la yiri ceebtaada hadduu mar alla asturo tqaa-in tahay maalinta dambe maradu kaa faydaa weligaa afkaaga iyo urkaagu hadday kala bedelan yihiin wallahi inaan waxba kuu qarsoonaanayn si ilaahay kuu fashilaba waa ku fashilaya gabadha hadda urna way uleedahay cunugna way u haysaa arrintiisa marka waad aragteen wax badanna waad arki doontaan iyadoo laga hadlaayo midda kale aan dhegaysi in tusaayo ila daawado marka bal gabdhahaana daawado islaamka waaka gabdhaha waa aragtiin intee leegiin ma aragtiin gabdhahaasu gabdho waalidkood ka hoos baxay ma yihiin runta markii la isu sheego hooyooyinkow markii runta aynu isu sheegno dhibaatada inaga bilaabataa inaguna dhamaataa waxaa laga yaabaa ilmaha hooyadood inay tiktoka ka caytamayso gabar kale caynayso ilmo kale inay caynayso ku mashquulsan tahay ilmaheedina aanay ka warhayn ilmaha gabdhahaas ma idheedihiin hadda ma idhahaysin ilaah baa inu ku dhaariyeen gabdhahaas hadda waalidkood gacantooda kuma jiraan ma ileedihiin rajii agoon xataa hadday leeyihiin dad baa haaya oy family u yihiin oo mas-uulka ah mas-uuliyaddi marka gabadha intaa iyadoo la eg public la soo istaagaysa dhaqan xumada mustaqbalkeeda xaguu aadi waxay intaa u samaynaysana ay tahay in la daawado iyo inay fiyu hesho yaa ka dameeya innagaa ka damayna laba group baa ka dameeya waalidkiioo mas-uuliyadoodi gabay oo ilmahooda aan ka warhayn kow iyo dadka xumaanta daawada ama faafiya haddaad hadda meel gasho tiktok haddaan hadda anigu galo cid iima soo gasho waxaa igu xiran 17,000 been niima sheegayo waa kaa meeshuu saaran yahay gala 17,000 baa igu xiran haddaan galo wallahina hal qof ii soo gelin way soo galaan markay arkaan horey ka cararaan laakiin meelaha kale oo xumaantu ka socoto waa la gelaya that's why gabdhahan quruxdaa leh bal quruxdooda arag ilaah baan kugu dharshay intay la egyihiin arag 17 16 meelahaas waa quruxdaasay leeyihiin mid kaloo iyaduna ka daran oon la yaabay oo aanba yaabay oo naag weyn ah ya oo iyaduna waalan baa jirta bal gabadhaan idinku ila daawado ilaah baa inagu dhaar gabadhaa ila daawado gabadha day naagtaa bal fiiriya idinku ilaah baa inagu dhaar day naagtaa daawada idinku daawada naagtaa day tan iyo gabdhahaas iyadaa laga yaaba inay hooyo u tahay naagtaan hadda naag yar maaha waa naag weyn laakiin naag caadi uma eka naag bilwad leh wareersan is-ilowsan inay tahay laga yaabaa waa qaawantahay nuuda waay diracaas waxaa aragtaan bay samaynaysaa video way duubaysaa iyadayaa soo boosti garaynaysaa waxaa laga yaabaa inay ilmo leedahay cunugii inuu daawanaya la arkaa berri inay intay meel kusoo fadhiisato iyadii ay gabar kale cayayso meel saaran tahay ay wax kuu sheegayso ood dhegaysanaysaa laga yaabaa oy daaqad kuu saaran tahay oo miday aqoon ay intaa iyadu ay samaynayso ay ku caynayso nimankiina waa kuwa daahir soo bandhigaya gabdhihiina waa kuwa
xaggee u soconaa marka Soomaaliya ma rabno inaynu wax isu sheegno ma rabno inaynu iswaanino ma rabno inaynu xumaanta iska qabanno laakiin maxaynu rabnaa inaynu been isugu sacabtuno maxaynu rabnaa inaynu xumaan isku sabood garayno maxaynu rabnaa inaynu qahallaase iyo hawo beena ku noolaano ilaah baa inu ku dhaariyey intaas mayna bixine idinkaa inay daayay arrimahan maxaynu ka qaban karaa inagu haddaynu hooyooyina naagahan qaawan niikinaya waxa aragta samaynaya maxaynu ka qaban karaa raggan dumarka noocaana dumarka dhibaatayna iyaguna noocaana marka kaleetana wanaagga aragteen soo bandhigaya iyagana maxaynu ka qaban karaa wax ma ka qaban karaa mise ma ka qaban karaa waa ka qaban karaa baa anigu aaminsana laakiin waa goorma waa markaynu midaysana waa goorma waa markaan runta u noolna waa goorma waa markaan kalsooni leenna waa goorma waa markaan runta isu sheegno bal adigu sida aad u aragto ila soo wadaag daahir cali sowna waxaan leeyahay thank you so much ila soo wadaaga barnaamijka inuu dheeraado ma rabo marka intaasan kaga baxaya fikradaada ila soo wadaag haddaad rabto wacyigelinta wanaagga ah inaynu faafino ka qayb qaadano gabdhaha iyo ciladan meeshay ka timi ciladan in haysata inaynu isa soo qaawino oo saa u ciyaaro ma bilowdaa keenaysa ma bahdilka kanoo kaleeto iyo markaynu guursano ay nagu hayaan baa keenaysa hadda gabadhaas waxay sheegaysaa in booliis 3 jeer u yimi oo uu dilay oo darisku xataa qirayaan gabdhaha saaran meesha video ugu dheeriya gabdhaha saaran meesha oo markhaanti iyaguna furaya waxaasoo dhibaato inuu ku samaynayo askartu markay u timaado inay dhahaysa waxba ma jiraan way qarinaysay bay sheegaysaa kuwa dariska ahina sheegayaan maxaa keenaya arrintaas maxaa inagu qasbaya inaynu wax iska weydiino falanqayno runta isu sheegno innagoo dumar baynu nahay bal horta iswaraysano wixii jira aynu xaqiiqda ka sheegno markaasaynu ragga iska celin karaay ma inay muuqataa mise inay ma muuqato waxaasoo fikrada walaalayaal commentiga igula soo wadaaga youtube-ka subscribe dheh follow ii noqo commentigaagana ii soo qor wuxuu doona ha ahaadee aad baan ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad dadka igu soo biiray insha allahu tacaala hadda gabadha waxay sheegaysaa inay tiktok mar 7,000 ka samaysay mar 2,000 ka samaysay mar 4,000 ka samaysay lacagba waaye bahalku ilay oo aanu shilin ka siinin waxaasoo lacaga maxaa lagu samaynayaa been laynii sheegayo maxaa lagu samaynayaa qaawanaan laynii soo bandhigayo maxaa lagu samaynayaa dad been laga soo sheegayo la iska caynayo waa daawanaysiin laakiin runta markii lagu sheego lagu dhawr ma aha war walaalow saan maaha waad cararaysaa ma innagaa marka cadaabta gacanteena ku raadsanayno sacbaha ku sidana mise walaalayaalow wax kalaa jira idinka waxaasoo jawaabaa idinka rabaa waana idin salaamayo walaashii nadiif qaran iyo arrimaha bulshada oo fara badan kuwa kalena waan hayaa waa inii soo gelin doonaa waa soo dayn doonaa igala qayb qaata ii faafi aad baan kugu mahad celinaya bal adiguna maskaxdaada ila soo wadaag haddaan qaldanahay ii soo qor haddaan saxanahayna igu soo dhiirigeli adiguna sida ay kula tahay iyo waxa aad iga dareentay iyo waxa fiidiyowyada aan ku tusiyay codadka qayb kaa dhagaysiiyey aad ka daawatay iisoo sheeg fideoga daahir cali soo gabadhaan ka qaada wuu dheer yahay waxaan usoo gaabiyey waxa weeye tiktok ku wada jirteen oo kale kasoo daawateen macna ma samaynayo marka inaan meesha ku buuxiyo maantana ku celceliyo waxbana ma samaynayo murug iyo calool xumo iyo ciil aan ahayn marka saasaan usoo gaabiyey waana idin salaamayaa jikadii wax walba hays walaashii nadiif qaran youtube-keedii waaye subscribe iyo like iyo share intaas aynu ku ogaa waana idin salaamay assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu